dani kuguma jirto inaad dagaal nagu soo qaado waxaanu haysanaa hub ku filan inaanu tirtirno riyooyinkaaga ka hor intaysan rumoobintaadu hadalkan kulul ee ka soo yeedhay Masar wuxuu ku wajahnaa xilligaasi maamulkii Yuhuudda ee Sahnuuniyadda oo wuxuu noqon doonaa khaladka ugu weyn ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu gali doono haddii uu isku furo aag dagaal oo cusub xilli ay socdaan isbaahaysi ka dhan ah jiritaanka Sahnuuniyadda ee gobolka iyo waliba sidii loo kicin lahaa dhulka ay xoogga ku haystaan ee Falastiin. Geesta kale saaxiibka koowaad ee Israa'iil waa Mareykanka. waxa uu ku mashquulsan yahay baa la yiri xaalado isaga haysta sida sixir barar iyo xiisada ka furan baa la yiri dhanka Shiinaha. sidoo kale faragelinta uu ku hayo dagaalka Ukraine iyo Ruushka. waxaa kaloo maamulka Netanyahu gudaha kaga furan baa la yiri mucaaradad iyo waliba siyaasiyiin aan doonayn inuu xukuumaddiisa si sahlan ay u caga dhigato. ciidamada Yuhuudda ayaguna caqabad xoog leh ayay kala kulmi doonaan waddanka Masar oo hore u tijaabiyeen awoodahooda labada dal xilli uu dhex maray dagaaladii ugu qaraadhaa ee inta badan taariikhda la xasuusto. waxay kaloo Yuhuuddu kala kulmi doonaan baa la yiri haddii ay dagaal ku soo qaadaan Masar dhacdo ka darantii hore maadaama Masar ay haatan ka hubiyo ciidan badan tahay sidii hore waana in Netanyahu garwaaqsado meesha uu wado maamulkiisa iyo waliba hubka Yuhuudda sugaya hadday la dagaalamaan ama weerar ku soo qaadaan dawladda Masar. waxaa xusid mudan in Masar ay ahayd waddankii ugu horreeyay ee Carbeed ee heshiis nabadeed la saxiixday Israa'iil sanadii 1979 waxaana inta badan degan xuduudahan labadan dal. si kastaba ha ahaatee waxaa baryahan xiisada labada dhinac kiciyay oo cirka ku sii shareeray magaca askarigii Masaariga ahaa ee weerarka ka geystay xuduud beenaadka Israa'iil iyo waliba Masar kaasoo dood iyo hadal hayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada kadib markii qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil iyo Masar ay daaha ka rogeen faahfaahin ku saabsan cidda uu yahay iyo taariikh nololeedka askarigan shahiidka ah. Masar ayaa maamulka Israa'iil ka gudoontay meydka marxuumka Masaariga ah ee gacantiisa ku dilay 3 askari oo Yuhuuda isagana markii dambe ku shahiiday iska horimaadkii ka dhacay goobtaasi. wakaaladaha wararka ee Israa'iil ka soo baxa ayaa daaha ka qaaday in askariga dilka geystay lagu magacaabo Mohammed Saleh Ibrahim da'diisuna ay ahayd 22 jir. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale daabacday sawirka askarigan u dhashay dalka Masar iyaga oo sheegaya inuu ka tirsan yahay ciidamada ilaalada xuduudaha ee Masar wuxuuna ka soo jeedaa sida ay sheegeen deegaanka Ain Shams ee u dhow magaalada Qaahira. waxaana lagu aasay askarigan shahiidka ah tuulada Al-Amaar oo ka tirsan gobolka Qalyuubiya iyada oo dadka deegaankaasi ay si weyn uga soo qayb galeen aaska shahiidkan waxaana ka soo qayb galay tiro aad u badan oo qoyskiisa ah. dhacdada lagu laayay askartii Israa'iil iyo geerida shahiidka halyiga ee reer Masar ayaa muran iyo waliba isafdhaaf ka dhex dhalisay Calaa Mubaarak oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak iyo saxafiga reer Israa'iil ee lagu magacaabo Eddie Cohen. laakiin baa la yiri maadaama qofka wax dilay yahay muslim Masaari waliba ah oo qof walba uu sacabtumayay ayaa baa la yiri in mid iska caadi ah in nin muslim ah uu dilo nin Yuhuudi ah. laakiin maadaama qofka wax dilay baa la yiri uu yahay muslim waliba nin Masaari ah qof walbaana wuu sacabtumaya waa iska caadi buu yiri inaad disho nin Yuhuudi ah xitaa haddii uu axdiid ka dhaxeeyo adiga iyo asaga tani ma islaamnima runta sheeg muslimo ayuu yiri wariyahan Yuhuudka ah. waxaa hadalka qaatay Calaa Mubaarak oo ugu jawaabay Cohen bartiisa Twitterka wuxuuna yiri hagaag bal qiyaas marka Israa'iil soo gashay oo ay xoog ku qabsatay dhulka Falastiin iyo marka Israa'iil dhulka Falastiin ay ka samaysay deegaamin hor leh sidoo kale aynu qiyaasno marka qaramada midoobay ay soo saarto go'aamo badan oo ay ku taageerayso qadiyadda reer Falastiin balse Israa'iil ay ixtiraami weydo bal aynu qiyaasna buu yiri waxa ay noqon doonaan faaladiino haddii waxaas oo dambiyo ah ay cid kale geysan lahayd oo aan idinka ahayn. waxaa dhinaca kale maamulka Sahnuuniyadda ee Israa'iil uu ku dhaqaaqay talaabo khatar ah taasoo ay ka dareen qaadanayaan falkii dhacay oo cabsi ku dhex abuuray Yuhuudda taasoo ay wargeysyada Israa'iil ay aad ugu cadaadiyeen oo ay bilaabeen dhankoodana inay baal maraan heshiisyadii amni iyo khadadka cas ee dhanka military. dhacdadaas awgeed waxaana la filayaa in baaritaanada dhanka Israa'iil ay sii socon doonaan muddo dheer si loo ogaado sida ay ciidamada ammaanka Masar ay ugu suurta gashay inay gudaha u galaan xuduud beenaadka iyadoo ay jirto xayndaab ku wareegsan goobtaas oo dhererkeedu yahay 2 mitir. waxaana kale uu tilmaamay in Israa'iil ay doonayso inay ka faa'iideysato dhacdadan si ay u ballaariso oo ay saameyn ugu yeelato gacan ku haynta ammaanka xuduudka Masar. balse waxaa meesha ku jira oo aysan Israa'iil xisaabta ku darsan in ciidamada qalabka sida ee Masar ay ku dhawaaqeen inay dhawaan gudoomeen markabka dagaalka ee Al-Qalhar
kaasoo noociisu yahay Meko A200 oo ay dhistay shirkadda TKMS ee laga leeyahay dalka Jarmalka, taasoo calaamad u ah in ciidamada badda Masar ay diyaariyeen hub culus haddii baa la yidhi Israa'iil ay soo wajahdo xaalad dagaal. waana markabkii labaad oo ka mid ah 4 markab oo noocan ah, kuwaas oo ay heshiis qandaraas kula saxiixdeen Masar iyo Jarmalka xaflad lagu qabtay magaalada Bremerhaven ee dalka Jarmalka, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen munaasabadaasi tiro badan oo ka tirsan taliyaasha ciidamada badda Masar iyo Jarmalka, safiirka Masar u fadhiya Jarmalka, u qaybsamaha baleeri ciidamada Masar ee Jarmalka, iyo tiro wakiil ah oo ka socday shirkadda Jarmalka ee TKMS loo soo gaabiyo oo ah shirkadda samaysay markabkan Al-Qahar. taliyaha ciidanka badda Masar Ashraf Atwa ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay iskaashiga miro dhalay ee u dhaxeeya ciidamada badda Masar iyo Jarmalka, kaasoo ku yimi qaab dhismeedkiisu qorshaha horumarineed ee casriyeynta maraakiibta ciidamada badda ee Masar. markabkan dagaalka Al-Qahar waxa uu kor u qaadi doonaa baaliyiri ammaanka iyo xasiloonida goobaha ay ka howlgalayaan ciidamada badda ee Masar, isla markaana waxay sugi doonaan sohdimaha iyo aagaga dhaqaale ee badda, iyo weliba inay sidoo kale awood u yeeshaan inay wajihi karaan caqabadaha iyo khataraha ka soo cusboonaada gobolka. markabkan cusub ee loo yaqaano Al-Qahar oo ka howlgali doona biyaha Masar ayaa wuxuu leeyahay astaamo badan oo dhanka farsamada ah iyo weliba qalab casri ah oo awood u siinaya inuu fuliyo howlgal kasta oo dhinaca dagaalka ee badda. waxaana markabkan lagu sugi karaa khayraadka dabiiciga ah ee ceegaaga badaha gunteeda iyo kuwa kale ee dalku leeyahay, taasoo ka dhigaysa in markabkan Al-Qahar uu ku qalabaysan yahay hubkii ugu casrisanaa iyo teknolojiyad aad u sareysa, qiimo iyo weliba tayo badan oo dheeri ahna ku kordhinaysa awoodda ciidamada badda si ay awood ugu yeeshaan ilaalinta amniga qaranka ee Masar. haddii Israa'iil ay dagaal soo qaado, markabka Al-Qahar waxa uu burburin karaa nidaamyada difaaca ee Israa'iil, wuxuuna ka dhigi doonaa magaalooyinka Israa'iil ay xoogga ku haysato kuwa gabi ahaanba dhulka la siman. dhinaciisana xogayaha guud ee Falastiin Mustafa Barghouti ayaa carabaabay in Israa'iil ay haatan ku jirto xaalad jahwareer oo aad u daran sababo la xiriira fashilka weyn ee kaga dhacay amniga gudaha, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in Tel Aviv aysan sinaba u qaadi karin khasaare nafeed inuu soo gaadho, waxaana dalkii 3 askari lagu macneeyay inay muujinayso fashilka ku yimid siyaasadda ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, taasoo haddii ay dhacdadan aan wax ficila laga muujin ay wax u dhimi doonto baa la yidhi heshiisyada nabadeed ee Israa'iil la gashay qaar ka mid ah dalalka carabta, waxayna bulshada carabtu ku dhiiranaan doontaa inay falkan oo kala geystaan iyagoo isku mowqif ah. Mustafa wuxuu kaloo tilmaamay in wiilkii dhalinyarada ahaa ee reer Masar uu yahay shahiid maadaama uu gutay waajibaadkiisii shaqo, iskana caabiyay askartii Yuhuudda isagoo difaacaya dalkiisa iyo weliba dadkiisa. wuxuuna u arkayay falkaasi inay caddayn u tahay in shucuubta carabtu ay weli qadiyadda Falastiin u tahay halka ugu sarreysa, mudnaanta koowaadna ay siinayaan, isla markaana ay diidaan wax kasta oo wax u dhimi kara. waxay kaloo ka soo horjeedaan ama ay aad ugu cadhoodeen inay dalkooda ama dal kale oo muslim ah ay Israa'iil la yeelato heshiis iyadoo wax u dhimaysa danaha shacabka reer Falastiin.